daawadayaasheena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub. muddo saacad ayay fadhisaa miis cidla ah kaligeed sida in ay sugayso saaxiibkeeda ama gacaliyaheeda ma qiyaasi karo dhab ahaantii maxaa yeelay ma su'aalin cidda ay sugayso. waxaa dareenkayga soo jiitay waxay ahayd in ay fiirinayso saacaddeeda daqiiqad kasta. kabilyeerigii oo dhinacayga jiiraya ayay gacanta u taagtay waxaana ka dalbatay koob kafay ah. indhaheeda waxaa ka muuqdo dhaldhalaal aad mooday ilin laga yaabay in qofka ay sugaysa uusan soo daahin, laakiin iyadoo xilli dambe timid balantiina ay ka soo dibdhacday. cakuye yaa cidlayn kara gabar sidaan qurux badan, mala hadlaa ma weydiiyaa waxa keliyaed fadhiisiyey, iyada iska daayay maxaa aniga keliyay i fadhiisiyey. aniguba qof ayaan sugayaa laakiin ma soo daahin oo maba imaanayo, sababtoo ah waxay dhimatay wakhti hore. waa ii caado inaan halkan imaado wakhti ka wakhti si aan u ceshto xasuusteeda. gabartii waxay bilowday inay oydo oo hingubasho leh. kabilyeerigii ayaa u yimid wuxuuna hor dhigay tiish ay ilinta iskaga tirto. isagoo aanan wax hadal odhan waxa u ekaa sidii inuu la qabsaday oohinteeda, maxaa yeelay waxaa la yaabay naxariistiradiisa iyo sidii uusan waxba uga soo qaadin gabarta oohinteeda. hadda ma u tagaa intaan laabta keliyo ma aamusiya, ilinta ma ka tirtiraa, ma u sheegaa in wax walba ay wanaagsanaan doonaan. marka hore waa inaan ogaadaa sababtay u ooynayso. waxaan u tegay kabilyeerigii waxaan weydiiyey sababtay u ooynayso gabadha. wuxuu igu yidhi jacaylkeedii ayaa dhintay, maalin kastana waxay halkan u timaadaa inay ka oydo dhimashadiisa, ayuu si muruga la igu yidhi. waan soo jeestay misena maba joogta gabarhtii oo maba fadhisa miiskeedii. waxaan haddana soo fiiriyey dhanka kabilyeeriga, isna maba taagna halkiisii. ma jiro qof kale oo kafayga joogo, aniga maahine. waxaad mooddaa in dadkii oo dhan hal mar ay isbaabi'iyeen. waxaan u cararay dhanka suulida si aan u soo dhaqo wejiga. kor ayaan u soo qaaday madaxa si aan iskugu fiiriyo miyaaradda, misena maba ka dhex muuqdo sawirkayga. sababtoo ah maahi qof jira, waxaan ahay ruux mar hore dhintay. waxaan ahay qofka ay sugayso gabarta. run ahaantii waxaan ahay xasuus oo keliya. waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo bir, sidoo kale la wadaag asxaabtaada si aan u helno asxaab sida adigoo kale. fikirkaaga qaybta hoose faallada nagu soo gudbi, waxay noo tahay dhiirigelin aad u weyn. हर रोज पूछे ये